nin baa wuxuu qabay naag nafta Ilaahay u keentay, qaylada, muranka, dalabaadka joogtada ah, dulmiga deriska, jiif xumada, cunto xumida iyo qaar kaloo badan ayuu kula noolaa. Ninku wuxuu u haystay in dumarka dhammaantood sida naagtiisaas ay u dhib badan yihiin. Waxaa halqabsi u ahaa, dumarku waa balaayo loo baahan yahay. Maalintii dambe naagtii oo xaafadda lugaynaysa ay raabiya qabaa lugta ha ka qaniino, muddo kadibna qaniinyadii ha u dhimato. Ninkii dhowr sano markii uu naag la'aan ahaa ayuu maalintii dambe naag kala guursaday. Mise waaba tii hore cagsigeeda. Nin daryeelista, nadaafadda, waxdhaqaalaynta, afgaabnida, xishoodka, baarinimada, cunto macaanida, gogol macaanida iyo wixii lamida ayuu kala kulmay. Ninkii waa cusub ayaa u baryay. Wuxuu u qaadan waayay in dumar sida islaantan ahi ay jiraan. Wuxuu isu arkay nin jannadii runta ahayd ku jira oo kale. Subaxdii dambe wuxuu soo iibiyey 4 neef ahi. Wuxuu islaantii ku yidhi, neef hilibkiisa reeraha deriska ah u qaybi, neef hilibkiisa reerkaaga sii, neef hilibkiisa aniga iyo adiga meel inoo dhig, neefka afaraad ee soo harayna hilibkiisa waxaad siisaa naagteedii dhimatay eygii lugta ka qaniinay. Sheekada labaad. Islaam baa maqashay in ninkeedu uu xaas labaad la guursaday. Waxay dalbatay furiin, neefta ayayna ku dhejisay ilaa markii dambe uu furay. Waa tii horey loo yidhi, islaan marka ay ninkeeda isdagaalaan, maskaxdeeda 3 wax baa ku soo hara. 1. Wixii wanaag ahaa oo ninka intii ay isqabeen ay iyada u samaysay. 2. Wixii xumaan ahaa ee ninka intii ay isqabeen iyada ku samaysay. 3. Qorshihii mustaqbalka ay ninkaas uga aarsan lahayd. Haddaba islaantii feker iyo falanqayn dheer kadib waxay go'aansatay inay gabadhii uu ninkeeda guursaday aabbaheed guursato, waana ay guursatay. Sidaasna hal dhagax bay 3 shimbirood ku dishay. Ninkeedii hore markuu ogaaday inay sodogiis guursatay, istaroog ayaa ku dhacay. Xaaskiisii cusbaydna aabbaheed ay guursatay darteed dhiigkar baa ku dhacay. Xaaskiisa cusub hooyadeedna minyaro ayay u noqotay. Markii ay maqashayna kaadi macaan degdega ayaa ku soo booday. Qoraha sheekooyinkan Ustaad Sabriye Muuse wuxuu leeyahay, Ibliis baa qisada islaanta inta uu maqlay iyada u soo xeraystay, bal inuu cilmi isaga ka maqan ka kororsado. Waxaan filayaa saaxiibayaal sheekooyinkan inaad ka hesheen. Inala wadaag labada sheeko midda aad sida khaaska uga heshay muuqaalkan si ay asxaabta kale uga bogtaan. Inoo sheer gareeya.